aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xildhibaan gobolka waa gobolkii awdal ku soo dhawow ka horeyso waxa weeye wiiga soo socda haddii la yiraahdo waxa la daahfuri doonaa kaadh qaadashadii oo ayaamii dhaweyd la isdiiwaan geliyay marka qof walba oo reer awdal ah waxaan ku dhiirigelinayaa inay qaataan kaadhkaas insha Allah waa kii aynu doorashada aynu ku gali doono haddii Ilaahay yiraahdo ayaan dhaweyd shaqo yar oo ka dhacday magaalada Boorama kaasi oo ahayd banaanbax rabshado watay aad iyo aad baan ugu xunahay haddaan ahnay xisbiga ucid wixii ka dhacay degmada Boorama waxaan maamulka gobolka taliyaha qaybka iyo barasaabka u soo jeedinayaa in dadyoga xiran lagu qabtay rabshadahaas waxaa jira dad badan oo waxba geysan oo xiran waxaan u soo jeedin lahaa in dadyoga la kala saaro wixii bila dambiyana la sii daayo wixii dambi lagu hayana cadaaladda la horgeeyo sida ugu dhaqsaha badan taliyaha qaybku waa nin wax badan maalintii dhaweeyay rabshaduhu socday xakameeyay waayo dhibaatadu way ka badnaan lahayd sidii maalintii dhaweeyay ay dhacday intii dhaawacantayna Allah ha caafiyo xildhibaan Siciid Cudhay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta caawa joogo magaalada Boorama caasimadda gobolka Awdal oo waxyaabo badan ku sifowday ugu caawa halkan inaan igu soo dhaweysaan aad iyo aad baa ugu mahadsantiin dalka waxa ka taagan oo Ilaahay ha inaga sabata saare inagu habsatay siyaasad xumo dalka markay siyaasad xumo ka dhacdo macnaheedu waxa weeyaan bulshadu xataa amni ma dareento Boorama maalmihii dhaweeyto waxa ka dhacay waxay ahaayeen siyaasad xumo dadka xidhxidhani siyaasad xumo u xidhan yihiin waxyaabaha dhacay aan ilaa imika la fulin ee jeelasha loogu jiraana waa siyaasad xumo dul hoganaysa hogaanka iyo madaxweynaha xukuumadda kulmiye laakiin Soomaaliland inay dhisanto oo ay horumarto Boorama buddig u ahayd insha Allah biidmillaahi kariimna xukuumadda jirta halka laga ridi doonaa inay Boorama buddig u noqoto ayaan Ilaahay biidankiisa rajaynaya waxaan hadal idinku soo gabagabeynayaa qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliland jooga dibintuu cunaya dibinta wuxuu cunayaa waxaanu arkahayn mustaqbal dhab ah oo uu higsan karo 32 sanadood bay Soomaaliland jirtay caawal Soomaaliland waxay dib u dhacday 14 sanadood bay dib u dhacday 32 sanadood marka laga gooyo 14 sanadood dimuqraadiyadii baa dib u dhacday wax waliba dib u dhacay dib u ridka dhacayaana maaha dadka maaha reer Soomaaliland maaha dhalinyarada maaha haweenka waa siyaasad xumo waayo inaga ayaa qaldan oo waxa saxda aan dooranayn ama beenaaleyntu idaacad inoo soo fadhiisto oo waxaan jirin inoogu sheekeeyo ayaynu marka dambe qabyaalad ku raacnaa dadka waynu dhimanaa waxaan maanta dhacaya colaado aad iyo aad u xun baa dhacaya oo reer Soomaaliland dhexdooda ayaa isdilaya reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliland iyo gobolka Soomaaliland ay xukuumaddu maanta ay hayaan oo rasaasi dhacaysa waa wixii loo baahnaa in dialoog lagu xalliyo oo lagu xalliyo hadal iyo wada hadal iyo maxaa doonaysaa iyo waxa hase yeeshee waa ta keentay maanta in jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu intaasoo sanadood ku soo tabcaynay gobollo kamida maanta laga qabto doorashadii golaha deegaanka ee Puntland armiyaana ayaan daraahayn
qaladku inaga maahee waa qolada meesha haysata waa xukuumadda ayaa qaladkan oo dhan leh waayo waajibaadkeeda ka ugu horeeya ayaa wuxuu yahay inay ilaaliso national security-ga dalka axmed buuri baan ugu mahadnaqaynaa imaanshihiisa gobolka awdal uu yimiday waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan